السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال dhageystayaal waa dawladnimo TV oo xilidan oo kala aad kala jaan qaadaan warar barnaamijyo iyo warbixino kala duwan ee iminka waxaad ku soo dhawaataan wixii warar naga soo gaaray dal iyo dibadda aynu guda galno warka oo dhan. haddii aan ku bilowno dadaalada beesha caalamka ay wado ee ku aadan arrimaha doorashooyinka ayna ku doonayso inay ku xalliso khilaafka arrimaha doorashooyinka shir u dhaxeeya madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ayaa xalay waxa uu ka bilowday magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta xalane iyadoo is-afgarad iyo isku soo dhawaansho ay wada gaareen. waxaa lagu ballamay shirar kale oo gooni ah ay yeeshaan maalintii bixi ah oo sabti ah in isugu yimaadaan si loo soo socodsiiyo si hore loogu soo socodsiiyo arrimaha muhiimka loona xoojiyo isfahamka horseedi kara natiijo wanaagsan ee ka soo baxda shirarkooda. sidoo kale caawa ayaa loo ballansan yahay in shirar gaargaar ah ay yeeshaan madaxda maamul goboleedyada kuwaas oo ka dhacaya magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta ay degan yihiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug midowga musharaxiinta ayaa lagu wadaa in sidoo kale ay casho sharaf ay u sameeyaan madaxweynayaasha kale iyo midowga musharaxiinta iyadoo lagu wado in kulanka uu dhaco habeen dambe sida ilo lagu kalsoonaa karo ay sheegayaan. shirar kale ayaa la filayaa in caaw dhexmaro madaxweyne Qoorqoor iyo madaxweyne Axmed Madoobe. waxaa shirkaan uu qayb ka yahay dadaalada Qoorqoor uu ku doonayo inuu isugu keeno madaxda kala duwan ee ku muransan arrimaha doorashooyinka isagoo horeyna uga shaqeeyay in madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ay yeeshaan kulan gaar ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka kadib 4 maalmood oo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ay fadhiyeen xarunta ciidanka cirka ee Avisioni halkaas oo aysan ka soo bixin wax natiijo ah maadaama aan lagu heshiin madaxweynayaashii Puntland iyo sidoo kale Jubbaland guud ahaan aysan ka soo qayb galin oo ay halkaas aysan soo xaadirin. xaaska madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ku geeriyootay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya. الله ونحرسته حاسك مدحوني هراء دالك علي مهدي ياكو غريوتي مغالده نيروبي عاصمه ودنكاسي كينيا ورك لغيلي مغالده نيروبي يا شيغي ان ساكي halkaas ay ku geeriyootay xaaska madaxweynihii hore ee Soomaaliya محمد علي مهدي محمد الله ونحرسته رحمه محمد جعل يا الحقيقي ان ساكي ku geeriyootay isbitaal ku yaal magaalada Nairobi caasimada Kenya halkaas muddo 7 ay ku jirtay oo ay xanuunsanayso waxaana mar qura ayada waliba seegeeda ku dhacay cudurka COVID-19 sida laga soo xigtay xubno qoyskeeda waxaana la sheegay in marxumadda ay maalmihii dambe cudurka COVID-19 ay u geeriyootay ay u xanuunsanaysay waxaana cudurkaasi hore ugu dhintay Ali Mahdi oo asna 10kii March u geeriyooday viruskan kaas oo asqar lagu sameeyay magaalada Muqdisho. xubno badan oo mas'uuliyiin ay ku jiraan musharaxiin ayaa ka tacsiyay musharax Daahir Maxamuud Geele ayaa kamid ah xubnaha ka tacsiyay isagoo oo tacsiyo dareelada iyo qoyska ay ka baxday Raxmo Maxamed Gacal xaaskii hore ee Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka Ali Mahdi Maxamed oo asna 10kii Maarso ku geeriyooday isla isbitaalkan ku yaala magaalada Nairobi kaasoo markii dambe loo soo qaaday magaalada Muqdisho oo asqar loogu sameeyay. maxbuus ayaa isku dhex dilay xabsi ku yaala magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. maxbuus ku xirnaa xabsiga dhexe ee Garowe ee Puntland ayaa lagu soo waramayaa inuu isku dhex dilay xabsiga sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka asluubta ee Puntland. maxbuuskan oo magaciisa lagu sheegay Cali ayaa 3 bishan March ee 2021 maxkamad ciidan ku riday xukun 10 sano ah iyadoo lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. ninkan ayaa laga qabtay Garowe 3 bilood ka hor xilli uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Garowe lana sheegay inuu u soo gudbi lahaa magaalada Boosaaso. lamaha ammaanka kama hadleen geerida maxbuuskan iyo sababta keentay in uu gacantiisa isku qaarajiyo laakiin saraakiil ka tirsan xabsiga ayaa xaqiijiyay inuu geeriyooday. ninkaas oo wadadka qaarna waxay sheegayaan inuu isdaldalay oo qolkii kaligiis uu ku jiray oo ku dhex dhintay. saraakiisha asluubta ayaana sidaas laga soo xigtay iyadoo warar kale oo arintaasi ku saabsan wali aysan soo saarin lamaha amniga Puntland. dowladda Kenya ayaa ku hanjabtay inay tilaabo ka qaadi doonto Soomaalida ku nool dalkeeda ee haysan sharciga.
dowladda Kenya ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo ay ku cadaadinayso shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda sida ay sheegeen warbaahinta madaxa bannaan ee dalkaasi. Kenya waxay ka dhawaajisay inay tarxiili doonto Soomaalida ku dhaqan dalkaasi aan sharciga haysan, sidoo kalena ay si gaar ah u beegsan doonto dadka looga shakiyay falalka argagixiso ama maalgelintaba. xogta la faafiyay ayaa waxaa ku jirta in Kenya ay sheegtay inay hantidooda la wareegi doonto shakhsiyaadka Soomaalida ah ee looga shakiyay inay maalgeliyaan argagixisada sida ay hadalka u dhigeen. Kenya waxay muuqataa inay qaadayso tallaabooyin argoosi ah maadaama ay ku guuldaro ka soo gaartay kiiska yaalay maxkamadda ICJ ee ahaa badii ay muranka gelisay. dhanka kale Kenya waxay hore ugu dhawaaqday inay xiri doonto xiriyaha ay Soomaali badan ku nool yihiin oo qaxootiga ku yaala gudaha dalkaasi, iyadoona u qabatay in 2 toddobaad lagu xiro xiriyahaasi. tirada dadka u dhintay cudurka corona ayaa sii korortay deegaanada Galmudug iyadoo wasiirka caafimaadka maamulkaasna uu sheegay in xarumaha magaalooyin ka mid ah Galmudug laga hirgeliyay xarumo si gaar ah lagu karantiilo dadka uu soo rito cudurka. galmudug waxa ay sheegtay in ay viruska corona oo si ba'an u saameeyay deegaano kamid ah maamulkaas, iyadoo sidoo kalena maamulka galmudug ay cisbitaal la tacaalayo xanuunkan mar kale xariga ay ka jareen, iyadoo sidoo kalena uu sii kordhayo viruskan marka loo eego dadka uu saameynayo. warbixinadii ugu dambeeyay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay soo saartay waxa ay muujinayeen in tirada dadka uu ku dhacayo kuwa u dhimanaya coronavirus ay noqdeen kuwa ugu badan gobolada dalka Soomaaliya. meelaha ugu badan viruska laga diiwaan geliyay waxaa kamid ah Somaliland oo 24 saac waa 24 saac ugu dambeeyay wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in laga diiwaan geliyay 79 qof, halka Jubbaland laga diiwaan geliyay 27, gobolka Banaadir oo Muqdisho ahna 21, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudugna tiradoodu aad ay u yar tahay marka loo eego waa min 4 ilaa 3, laakiin Galmudug waxa ay sheegtay in dadka u dhimanaya viruskan deegaanadaas uu sii kordhayo maadaama ay sheegeen in mas'uuliyiinta qaarkood dadku aysan imaanin goobaha caafimaadka oo aan la baarayn, taasoo la ogaaday in dad badan ay u dhinteen kuwaas oo qaarkood ku sugan magaalooyinka dhaca gobolkaasi Galgaduud iyo sidoo kale gobolkaasi Mudug. wasiirka caafimaadka ee Galmudug oo maanta xariga ka jaray cisbitaal kale laga howlgeliyay deegaanada Galmudug kaasoo lala tacaalaya viruskan ayaa sheegay in maamul ahaan ay ka go'an tahay la tacaalida iyo sidii loo yareyn lahaa viruskan khatartiisa oo dad badan ay u dhimanayaan. caabuqan marka wuxuu dib badan oo naf iyo maalba u geystay dadkii ku noolaa deegaanka degmadan qaasatan caabud waxaan ka bilownay 3 heer oo cudurkaas lagu tacaalayo. 3 maalin la soo dhaafay waxaan xoojinay oo sare u qaadnay wacyigelintii ka socotay degmadan. waxaan kaloo sare u qaadnay oo maanta aan ku soo darnay oo soo deerinay baaritaankii testkii lagu baari lahaa cudurkan qofka inuu positive yahay inuu negative u yahay. xaruntan waxa sida uu doctorka noo sheegay waxay hadda diyaar u tahay inay qabato maarata xakameyn iyo daaweyn iyo management inay ka helaan bukaanka ka cabanaya caabuqan. ka wasaaradda ahaanna waxaan ballan qaadaynaa insha Allah tacaala oo joogteynayna sidaan u sameynayna supportka nooga aadana mas'uuliyadda aan ku lahayn xaruntan iyo joogteynteeda dhammaan degmadan iyo degmooyin kale ee Galmudugba inaan gaarsiino adeeg caafimaad oo looga hortagayo caabuqa. cudurka coronavirus ayaa u muuqanaya mid si ba'an hadda ugu faafayo gobolada dalka. meelaha ugu badan ee sidoo kale tirada dhimashada laga diiwaan gelin waxaa qaybka gobolka Sogado oo la soo sheegay in deegaano badan oo cudurkan uu ka dilaacay gaar ahaan deegaanka Ceel Cali la yiraahdo oo gobolka Sogado ka tirsan oo la sheegay inay gacanta ku hayaan al-shabaab ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa la soo sheegay in ilaa 6 qof ay u dhinteen cudurkaasi oo si ba'an kaga dilaacay deegaanadaas. sidoo kalena hal cisbitaal ayaa la sheegay in magaalada uu ku yaalo oo hal xabo oo qalabka oxygen-ka ama neefta ah uu yaalo, taas oo ka badan marka loo eego dadka viruskan oo dhibaateynayo ku sugan deegaanadaasi. ilaa hadda ma jirto macluumaadyo badan oo laga helayo deegaanadaasi maadaama badi deegaanada qaarkood hadda cudurka uu ka dilaacay la soo sheegayo in deegaano ay maamulaan al-shabaab. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu dib u eegis ku sameyn doono ciidanka Mareykanka ee laga saaray Soomaaliya. Christopher Romero oo ah kusimaha kaaliyaha xogayaha difaaca ee howlgallada gaarka ee Mareykanka oo soo bandhig ku sameeyay tallaabada madaxweynaha 40-aad ee Mareykanka Donald Trump oo isbeddelka ciidan ugu sameeyay dalka Soomaaliya ka mid tahay iyo dib u eegista Joe Biden ee ka dhalatay tallaabooyinkaasi.
wuxuu ku tilmaamay go-aankii Trump ee ciidan saarista madax mid hoos u dhac weyn sababtay marka la eego la socodka Mareykanka xaaladda Soomaaliya maadaama askarta Ameerikaanka lagu hayo dalalka dariska ee Kenya iyo Djibouti. Saxiixa kaaliyaha xogayaha difaaca howlgallada gaarka ayaa tilmaamay in taliska Africom uu wado howlgalka ka dhan ah waxa uu ku yeeray kooxaha argixisada balse wuxuu su'aal geliyay qaabka uu u socdo marka la barbar dhigo ka hor go'aanka bixitaanka. Christopher ayaa difaacay ka qaybgalka ciidamada Mareykanka ee taageerista askarta la howlgasha ee ka shaqeeya dalalka oo ku sheegay inay joogaan kooxaha gacansaha kale leh Al-Qaacida oo Ameerikaanka dagaalka kala dhaxeeyo. sarkaal ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka Pentagon ayaa dhankiisa qiray hoos u dhaca awoodda Mareykanka iyo galaankalka uu ku dhaxlaha wadamada caalamka si gaar ah dalalka ka soo kabanaya dhibaatooyinka dagaalada ay ka dhaxleen. madaxweynaha 46 ee Mareykanka John Biden ayaa dib u eegis ku sameynaya talaabada uu qaaday madaxweynihii ka horeeyay ee Donald Trump kaas oo ah kala bixitaanka ciidamada Ameerikaanka ee jooga dalalka qaar. Janaayo 2020 maalmo ka hor inta uusan xafiiska madaxweynaha ka degan Donald Trump wuxuu dhaqan galiyay go'aan uu gaaray bishii November 2020 oo ah in Soomaaliya uu ka saaro askarta ka jooga oo fulisay duqeyntii ugu badneed ee uu amro madaxweyne Mareykan ah. waxa uu sheegay in Mareykanka uu kor kala soconayo dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan ururka Al-Shabaab oo ku xiran Al-Qaacida iyo Daesh oo xoogooda ka howlgasha dhulka buurleyda ee gobolka bari ee Puntland. Mareykanka ayaa Soomaaliya ka degnaa xerada Xalana oo qayb ka ah xilinaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. garoonkii ciidanka cirka ee Soomaaliya Beledoogle oo caasimada u jirta 100 kilomitir Kismaayo oo 500 kilomitir fogaan ahaan u jirta xarunta dalka Boosaaso waqooyi bari ah ee Gaalkacyo oo bartamaha ah. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa madaxweynaha dalka Eritrea kala hadlay sidii ciidanka Eritrea looga bixin lahaa xadka gobolka Tigreega oo la wadaago halkaas oo dhawaan lagu eedeeyay inay geysteen kufsi, jirdil iyo xasuuq bini'aadanimo. Abiy ayaa shalay gaaray magaalada Asmara ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ka garaabay wixii dhacay sidoo kalena dhibaatooyinka ay geysteen ciidanka Eritrea. wadahadaladii 26 bishii Maars 2021 ayaa yeelanay madaxweyne siyaasi Evaluary intii aan boqoshada ku joogay Asmara. dowladda Eritrea waxay ogolaatay in ciidanka ay kala baxdo xadka Itoobiya. ciidanka difaaca qaranka ayaa si dhaqsiya leh ula wareegi doona ilaalinta aagga xuduudda ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. waxa uu intaasi ku daray in Itoobiya iyo Eritrea ay kasii wada shaqeyn doonaan xoojinta xiriirkooda geesoodka himilooyinka iskaashiga dhaqaale. waxa uu soo kale sheegay in si wadi doonaan in shacabka labada dhinac ay wada shaqeeyaan. hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooday ayaa ku eedeeyay ciidanka Eritrea in magaalada Makalla ay ka geysteen xasuuq, jirdil, kufsi taas oo ka dhan ah bini'aadanimada. داعدي موجودة